maanta waxaan doonayaa in aan idin tusiyo nidaamka aad u raadin lahayd alaab ku iibsanto Amazon alaabta kugu iibsanto. inta badan waxaa muhiim ah in aad heshid alaabta aad ku iibin lahayd Amazon. maxaa iibsamo, maxaa ku gadmi karo oo aad ku iibin lahayd ayaa ugu muhiimsan inta aadan bilaabin ganacsiga Amazon. waa waxa ugu weyn aad u baahan tahay in aad waqtiga ku lumisid. hal mar haddii aad u baahan tahay in aad lacag aad ku samaysid, waa inaad raadisaa alaab iibsanto oo inta badan demand leh, inta badanna Amazon lagu iibiyo oona lagu raadsado. halkan waxaa idinku tusin doonaa marka nidaamka aad ku raadin lahayd adigoo isticmaalayo qeyb manual ah, nooc manual ah, iyo waxaan kaloo ku tusin doonaa adoo isticmaalayo software loogu talagalay in lagu raadiyo alaabta isla markaas Amazon ku iibsanto. softwaradaas qaar waa free, qaarna waa lacag. inta badan kuwa freega ah waa kuwo aan u fiicneen nidaamka aad rabto ama sida aad rabtid alaabta aad ku iibin karto Amazon kuma soo saari karaan. balse waa muhiim in aad ogaatid haddii aadan awoodin in aad iibsato kuwa lacagta lagu bixiyo oo aad ugu fiican kuwa freega ah, waxaad aadi kartaa kuwa lacagta aan loo bixinin. marka nidaam kalena waxaa jiro oo free ah oo adoon software isticmaalaynin, balse inta badan waxaan idinku waanin lahaa inaad isticmaashaan nidaamka lacagta lagu bixiyo, waayo waa very easy. lacag yarna waa ku iibsanay, waa 100 wax aan ka badnayn. marka waxaan idinkula talin lahaa inaad qaabka softwareka aad isticmaashaan inta badan. haddii fursad aad u heli karta nidaamka kii kale waxaa la dhihi jiray oo manualka ahna waa si ka fiican, balse it's time consuming, waqti ayuu kaa qaadan doonaa. marka aan sii gudagalno nidaamka oo manualka ah aad ku raadin lahayd alaab Amazon kugu iibsanto. hordha inta aanan usii gudagelin, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe garay oona bell buttonka kusii dhufo si aad u heshid videoyada kale aan doonaya in aan soo saaro oo ku saabsan sida Amazon lacag loogu sameeyo. ka hor inta aanan usii gulgelin waxaan idin tusin doonaa alaabta aan ku bilaabay oo ay ahayd midda koowaad oo experiment aan u qaaday haddii nidaamkan uu shaqeynayo. waxaan rabaa inaan ku caddeeyo Amazon waa nidaam shaqeynayo oo lacag lagu sameyn karo, balse waxay u baahan tahay in aad research fiican aad samaysid ka hor inta aadan ku go-aansanin. alaabta kooda aan ku bilaabay ha isku dayin inaad adna keentid, waad ku fashilmi doontaa, waayo aniga waa ku fashilmay. ku waanin lahayn in adi nooca aan keenay in aad keentid, fadlan iska ilaali. nidaamka manualka ah oo aad ku heli karto alaabta Amazon oo iibsanto, waxaa jiro nidaamyo oo ama criteria aad u baahan tahay inaad fiirisid ka hor inta aadan alaabtaas dooranin. waxaad u baahan tahay koodi inaad raadisid alaab iibsanto. sidee ayaad ku ogaan kartaa? waxaad ku ogaan kartaa, waxaad aadaysaa BSR, Amazon BSR rank, best seller ranks. Amazon markasta waxay soo bandhigtaa alaabta inta badan iibsanto per month, bil ahaan. marka alaabtaasaad aadaysaa, kadib waxaad raadinaysaa alaab oo ugu yaraan 3 sawir keli leedahay, lacagteedana ay tahay priceka alaabta lagu iibiyo $17 ilaa iyo $35 qiimaha. alaabtaas ayaad isku dayaysaa in aad fiirisid meeqa sawir ay leedahay, aad ogaatid pricekeed meeshaas halaas ma yahay. waa inaad ogaataa haddana best seller rank. best seller rank waxaa loo jeedaa lambarka alaabtaas ay ku iibsanto Amazon waa inuu ahaadaa mid u dhaxeeyo 5,000 ilaa iyo 2,500. waa inuu best seller rank ah inuu sidaas ahaadaa. kadibna waxaa ugu dambeeya aad u baahan tahay inaad fiirisid bullet points. bullet point waxaa loo yaqaanaa descriptionka, macluumaadka lagu saaray sida oo loo qeexay alaabta iyo waxay dadku qabanayso, waxay u tarayso ama siday u isticmaalayso. Amazon waxaad ku arki doontaa titleka alaabta, magaca alaabta, ka bacdina 5 bullet point oo alaabta sharxayso. halahaas ma leedahay? haddii oo bullet pointigaas ay 3 xabo 4 ama aysan lahayn, waa nidaamka ugu muhiimsan aad u baahan tahay inaad ku gashid oo aad fiirisid. waxaad u baahan tahay inaad ogaatid inay 3 sawir ay leedahay, lacagta inay u dhexeyso $17
$17 ilaa $20 wixii kusii koreeyo kabacdi inay bullet pointigiis uu 5 xabo ku yar yahay. haddii sidaas uu yahay oona uu ku jiro qaybta best sellers oo Amazon oo bishaas alaabtaas waa geli kartaa, balse ma isku hubo. nidaamkan waa nidaam manual ah. markasta waxaa idinku waanin lahaa inaad isku daysaan nidaamka aad isticmaalaysid software oo aad ku raadisid alaabta ku iibsanto, because software waxay kutusinayaan inta qofood uu raadiyo, inta qofood ay raadiyaan alaabtaas, demandigeed halihii ay wiigi iska dhaafay maalintii ay iibsanto. waxaa laga yaabaa inaad ogaatid intaasoo demand inay leedahay oo 2 qofood keli ay iibin hayaan alaabtaas. haddii hal mar aad qofku saddexaad aad noqotid laazima half or a quarter or 3/4 oo dadkaas demandigood laazima uu kusoo gaaraya. marka dad ka iibsadaan ma waynaysid macnaheed ayaan ka wadaa. marka waa muhiim inaad isticmaashid software-ada waxaa ka mid ah Jungle Squad, waa software kuwa kalena macnaa oo free ah. kuwa kale software kale free ahna waxay idinku soo tusin doonaa qaybta hoose oo video-gan. maanta waxaan doonayaa inaan idin tusiyo nidaamka aad u raadin lahayd alaab ku iibsanto adigoo isticmaalaya software-ka loo yaqaano Jungle Squad. Jungle Squad wuxuu ka mid yahay software-ada loo isticmaalo si lagu raadiyo alaabta kugu iibsanta isagoon waqti dheer ka qaadanaynin. Jungle Squad wuxuu hayaa database ama macluumaad ku saabsan alaabta iibsanto, qiimaheeda, pricekeeda. Jungle Squad wuxuu isticmaalaa 5 shuruud aan idinku soo tilmaamay video-ga hore ayuu isticmaalaa. sidoo kale markaad raadinaysid alaabta wuxuu isticmaalayaa reviews-ka, intee qofood ayaa iibiso, bulletka ma gaaban yihiin, ma dheer yihiin, ma badan yihiin, iyo BRS-ka, culeyska alaabta, weightkeeda, reviews-ka iyo ratingkeeda. intaasoo dhan kuwa idin soo tilmaamay intoodaba Jungle Squad wuxuu leeyahay qayb oo aad ku dooranaysid. marka waa muhiim inaad ogaatid shuruudahan aan ku soo tilmaamay, inaad ogaatid 10 price-ka waa $7 ilaa $30 inta u dhaxayso. waxaan idin dhahay BRS-ka best sellers rank waa inuu ahaadaa alaab u dhaxayso 2,500 ilaa 5,000. haddii 2,000 wax kusii hooseeno waaba kasii fiican tahay. marka waa in ay alaabta culeyskeeda ay 3 pounds ay ku yaraataa. marka shuruudaha idin soo tilmaamay intooda badan ayaad sidoo kale meeshan aad ku dooran doontaa markaad alaab aad ku raadinaysid. hal dheeraad ayaa jirto. halka dheeraad waa markaad alaabta raadinaysid waa in aad doorataa qayb aad doonaysid inaad alaabtaas ku iibisid. qaybta aan ka hadlayay macnaheed waxaa waaye Amazon waxay leedahay dhowr category oo alaab lagu iibiyo, sida personal care, health and personal care, baby products, sida automotiveska, sida kitchen patio. qaybo ayay leedahay oo alaab aad kusii iibin karto. waa qayb oo alaabta caafimaadka, qayb alaabta macnaa gymka ama almiinyada loo isticmaalo, qaybta alaabta ilmaha lagu gado, qaybta dharka lagu gado. sidaas ayay kala leedahay. marka kooda waa inaad doorataa qaybta aad alaab ku iibin rabto. haddii ay tahay health product ay tahay waa inaad health product aad doorataa. mase haddii aadan garanaynin qaybta aad wax ku iibin rabtid, waxaad yeeli kartaa, waxaad dooran kartaa intoodaba. select all ayaad leedahay. waxaa jiro qayb oo buugaag, stationery, office material lagu iibiyo, intooda badan industrial, qayb oo sportska alaabtood lagu iibiyo. waa dooran kartaa. marka hadhow waxaa kugu badnaanayo inta qayb aad fiirin doontid. wuxuu kuu soo saarayaa alaabtoo dhan oo shuruuda aad doorato ay kulmaan, shuruudaha buuxiyaan ayuu kusoo dooranaya. marka waad sii eegaysaa. markaad ogaatid ama markaad alaabta ay kusoo saaraan inta shuruudaha buuxiyaan, haddana meeshaas ugu sii harayso waxaa jirto qayb kale idin tusin doono. aad u baahan tahay in adi research dheeraad aad samaysid, inaad falanqeyn dheeraad aad barbaaris iyo meelo kale inaad sii galgashid, aad si fiican inaad macnaa alaabta aad u ogaatid.
qaybtaas waxaan idinku tusin doonaa video kale, balse waa inaad ogaataa in researchka meeshaas uusan ku akeenin. hal mar haddii aad ogaatay alaabta aad iibin rabtid, ka bacdi ayaa waxaad aadaysaa supplier. waa dadkii aad kusoo iibsan lahayd ayaa waxaa loo yaqaanaa supplierka, dadka ama soo saaraan waa warshado oo alaabta sameeyaan aad aadaysid. balse category waxaan u tilmaamay waxaa waye Amazon waxay leedahay qeyb loo yaqaano restricted product iyo unrestricted product. qeybta restricted product waxaa lagu jeedaa alaabta oo aan ku iibin karin Amazon adoo lagu soo ogolaanin, waayo waa inaad buuxisaa shuruudo oo loogu talagalay qofka uu Amazon ku iibinayo. marka restricted shuruud ay leedahay inaad buuxiso. unrestricted waa alaabta shuruud aysan lahayn oo aad iibin kartid, qof kastana iibin karo ayaa loo yaqaana. marka waa muhiim inta badan in aad focus ka saartid alaabta restricted aan ahayn, waayo shuruudaha iyo waxyaalahaas kale kuguma badnaanayaan. mar haddii category aad ogaatid in ay alaabta restricted aan ahayn, alaabta oo la xakameynin, aad u baahan tahay in nidaam dheeraad kale aad u marto si lagu ogolaado, waxaad aadi kartaa supplierka alaabtaas si aad u dalbatid. marka videoyada kalena waxaa idin tusin doonaa sida supplierada lala hadlo, sida aad supplierada aad isagala hadli lahayd, nidaamka lacag aad ku bixin lahayd. haddana waxaan sii gudageli doonaa qeybta isticmaalka Jungle Squad si aad ku raadin lahayd alaabta aad doonaysid. aan usii gudagalno qeybtii isticmaalka Jungle Squad. Jungle Squad sida idinku sheegay waa software aad u baahan tahay in aad u isticmaashid sidii aad ugu raadin lahayd alaabta aad doonaysid. isla markaa waxaad u baahan tahay inaad aadid website-ka loo yaqaano junglesquad.com. websitekaas aade wuxuu ku geenaa big ama website oo sidaas oo kaleed ah. marka pricekiisa halkaas ayaad ku fiirin kartaa, qiimihiisa, priceka oo softwareka lagu iibiyo. aniga marka shaqsi ahaanteeda waxaan iibsaday midkaana ugu raqiisan, kana aad aragt $19 bishii ah. kaasaa ii register garaysan, marka kaas ayaan isticmaalaa. aan sii gudagalo, marka hal mar haddii aad account aad leedahay, waxay ku siinayaan account ayaa ku siinayaan. ka bacdina fursad waxay kuu siinayaan inaad soo download garaysatid Chrome extension oo Chrome dhexgalayo, si uu ku caawiyo in aad ku raadisid alaabta aad doonaysid iyo adoo website-ka direct aad u isticmaasho. marka koowaad markaad sign up garaysid ama sign in garaysid, wuxuu ku keenayaa boggaan aad aragtiin ayuu ku keenayaa. marka waxaad leedahay download the Chromekii, add to Chrome ayaa leedahay, extension add extension. marka Chromekan wuxuu geli doonaa qeyb uu ku noqon doonaa Amazon website. halkan meelahan ayuu soo geli doonaa. marka aan sii fiirino waritaas downloaded, waxa uu soo download gareeyay. mar haddii qaabkaas ama nidaamkaas aad samaysid, wuxuu ku mid noqonaa qeyb Amazon ah. aan dhahno waxaad rabtaa in aad keento alaab sida boloni. aan dhahno boloni ayaad keeni rabtaa, boloni ama footwears ama heartbeat rate, wax oo fitness la xiriiro ayaa keeni rabtaa. aan kasoo qaado marka balls ama soccer balls aan dhahno soccer balls. marka ball number 5. marka waxaad aadaysaa extensionkan, waa kusii dhufane, wuxuu ku siinaa macnaa wixii dhan oo lasoo gaabay sidaad aragtiin fiiraad. wuxuu ku siinaa average monthly sales, average sales rank,
average price, average rating iyo opportunities iyo wax kasta uu ku siinaa. haddii aad fiiriso meeshan action, brand name, brand price, monthly sales, daily sales, kan wixii bishii la iibiyo waay, kan waxaa waaye maalintii wixii la iibiyo waay, maalintii alaabtan la iibiyo keliya meeqa ayaa kasoo baxdo, meeqaa qofood ilaa meeqa qofood ayaa faalooyin ka bixiyeen, meeqaa xidig ayaa la siiyey alaabtan, rankigeed meeqaa waay. marka sidaad aragtaanba macnaa sidaan ayuu ku siinaa. marka waad fiirin kartaa adoo fiirinayso sida aan kuusoo sheegay midka sharuudda uu buuxin doono oo ah waa inuu rankigiis u dhexeeyaa mid u dhexeeyo 2500 ilaa 5000 ama wixii kasii hooseeyo adoo fiirinaysid, iyo adoo fiirinaysid priceka qiimaha halii uu dhexeeyo. haddii aad fiirisid waxaa idin dheer $17 oo kaleed alaab ayaad keenataa. midkan haddii aad fiirisid pricekiisu uu hooseeyo isla markii waa kasii dhaqaaqee. marka waxaad raadina price u dhexeeyo $17 ilaa iyo $30 ilaa iyo $30 price uu yahay ayaad raadinay. marka waa sii soconee, waa fiirinay midkaana u dhexeeya waa $19 $19.99. markaad fiiriso waxaad fiirinay sharuudda ma buuxiyaa, haa. haddii aad fiirisid macnaha halkaa topiga magaciisa ama titleka wuu gaaban yahay, priceka waa aragtaa 19 ayuu yahay, $17 ilaa $35 wuu dhexeeyaa. haddii aad fiirisid xidiga inta xidig uu leeyahayna waa 3.5 wuu kasii badan yahay. aan fiirino 3.5 midkaan fiiri 4.5 waay. marka waa mid dadkii gataanba macnaa aad ratingkood ay soo dhiyaan. marka reviewskana aan fiirino, reviewskana waxaa waaye 400 waay, waa wax aad la geli karo sababto reviewska waxaan dhahnay ilaa iyo 1000 oo kale inuu ahaado waay. pricekan aad aragtaan kore ku qoran averagekan waa priceka inta alaab meeshan aad ku aragtaan kuli oo laisku soo dardaray oo waa celceliska priceka inta alaab meeshan dhan lagu soo taxay waay. marka waa average priceka caadiga ah maana priceka caadiga alaab kasta Amazon loogu iibiyo waa pricekan aad aragtaan. aan fiirino hadda kan haddii aan ku dhufan wuxuu ku geynaa priceka alaabta noocaas ku geynaa, waa aragtaan 8.3 ilaa kii kale ku leeyahay. marka 8 kaas aad aragtid waa alaabta priceka alaabta lagu iibiyo waay markaas, laakiin kan waa isku celceliska priceka. marka meeshan waxaa kugu soo bixi karo alaabta isla markaas aad geli kartid, waayo wax kasta waa lagu siiyey, magacaa lagu siiyey waa aragtaa, qiimaha lagu siiyey priceka, halii bishii lagu iibiyo bishii la iibiyo alaabtaas, maalintii halii la iibiyo, bishii halii lacagta ay soo geliso, inta xidig ay leedahay, inta faalo lagu soo bixiyey reviewska, inta xidig aad leedahay. marka adoo oo sharuuddaas aad raacaysid isla markii waa ku go-aansan kartaa. waxaad leedahay alaabtan ayay anfacdo oo sharuudda ay buuxisay. hadda inta badan waxaan qaadanaynaa alaabtan, haddii ani oo aan geli lahaa midaan ayaan qaadanaa, waayo sharuudaha waa ay buuxisay 19 waaye. waaye alaabtan ani fikrad ahaanteyda ma geli lahayn, waayo demand male alaabtan. haddii aad fiirisid maalintii meeqaa la iibiyaa 3 qaybtaas. haddii aad fiirisid waxaad u baahan tahay alaab maalintii zaaid u iibsanto, zaaid u gadanto ayaad raadinaya. alaabtan priceka wuu buuxiyaa sharuudaha aan tilmaanay, balse alaab iibsanto mu eko, waa aragtaan. marka waa ka wareejin lahaa. marka waxaan idin dhahay Jungle Squad sidaas ayuu ku fiican yahay. ilaa adi alaabta aad doonayso aad ka heshid, nidaamkaas ayaad ugu raadin kartaa sharuudaha. markii uu buuxiyo kadib waxaad aadi kartaa supplierka, waa nidaamkaas ayaad u isticmaali kartaa adoo isticmaalayo Jungle Squad extensionkiisa. ama haddii aad directly website-ka aad account ugu leedahay waad aadi kartaa, account hadaad ku leedahay website-ka waa aadi kartaa sida kan oo kale. haddaan account ayaan ku leeyahay, accountiga ayaan joogaa. okay, qaybtan wuxuu ku siinaa final product raadi,
find suppliers, dadka alaabta lagu soo iibsado raadi, keywords, alaabta keywordka loo isticmaalo markaad Amazon aad gelin rabtid. intaas oo dhan uu ku tusinaa. marka waxaan dhan waa features asi uu leeyahay alaab aad ku raadin karto, inventory, meeqa qofooda alaabtaas iibiso oo isla markaas hadda Amazon ay ku jiraan, intaas dhan ayaad ku raadin kartaa. marka anaga hadda alaab ayaan raadinoynaa, halkaas imaanayna find a product, alaab raadi, alaab aad iibisaad raadinaysaa, halkaasaa ku dhufanay, wuxuu ku geynaa qaybtaan, uu keenaa find a product, product tracker, opportunity, night hunter. marka waxaan aadaa opportunity finder, qaybtaas ayaan aadayaan. marka waxaan imaaday marka qaybta opportunity finder. opportunity finder ayaa imaanay, meeshaan waa ku raadin kartaa kuwa isla markaas ku iibsamo. waxaad aadi kartaa qaybtaas find a product database sidaan idin tilmaamay. sidoo kalena waa aragtaan product database, sidoo kale wuxuu isticmaalaa priceka, waa aragtaan minimum price, maximum price, priceka inta u dhexeyso. waxaan idin dhahay minimum price waa inuu ahaadaa priceka ugu yar $17 ilaa iyo alaab $30 u dhexeyso. waxaa leedahay $17 ilaa iyo $30 alaab u dhexeysaan u baahanahay. meeqa faalooyin waa lagu soo bixiyay, waxaan u baahanahay 0 ilaa iyo waxaa leedahay 1,000 reviews ayaan u baahanahay. minimum net ratingkiis meeqa 3.5 waa inuu ahaadaa ilaa iyo 5. kabacdi waxaa leedahay minimum rank, best seller rank waaye. marka best seller rank waxaad dooran kartaa adna 0 ayaa leedahay ilaa iyo 5,000 ayaad dooran kartaa. inta badan laakiin waxaa beelay alaabta isla markaas iibsanto in aad kusoo qabatid 2,500 inta u dhexeyso, because alaabtaas suuq waa ay kusii socotaa. 0 haddii la dhaho macnaa waxaa waaye alaabtaas magaalada waa ku cusub tahay, si fiican Amazon hataa information fiican ama database fiican ama macluumaad fiican ma laga haya camal. okay, minimum weight, culeyska ugu yar waa 0 ilaa iyo 3 pounds. marka culeyska waxaan idin dhahay macnaa alaabta aad keenayso waa inay ahaataa alaab oo iska fudud, alaab oo culeys aysan ahayn. waayo haddii alaab culeys aad keenaysid, qarashka aad alaabta wadanka kusoo dhoofin lahayd ama wadanka aad ku keeni lahayd ayaa badnaanayso. marka dadka mala tartami karto. meesha waxaa suuq markaad imaatid priceka hoos ma u dhigi kartid, waayo qaali ayaad ku keentay, saasay noqonay. marka hadhow sii iibinteeda kugu adkaan. markasta waxaa ka hor inta aadan keenin in aad kasii baaran degtid, aad keentay alaab oo isla markaa culeyskeed yaryahay. marka intaasaan dooranaynaa. kuwan kalena waa shuruudo kale, laakiin waan kasii boodaynaa. markaas haddii aad u baahan tahay ama aad og tahay categoriga ama qeybta aad u baahan tahay, caada isla markaas waa dooran kartaa. beauty, baby, aromorifka isla markaas waa dooran kartaa. ama haddaadan ogeynin waxaa leedahay select all, kulligood ayaa dooranay. intaanoo dhan asaa kuusoo baarayo, midka isla markii shuruudaha uu buuxiyo asaa kuusoo saarayo. mar haddii kuusoo saara adi waxaad u baahan tahay un keliya inaad raadisid, in aad halhal usii fiirisid. aan dhahno kulligood aan doorano, aan dhahno search raadi, wuxuu kuusoo saaraya isla markaas shuruudaha intaas buuxiyaan, si aad halhal aad usii fiirisid, kabacdina aad ku go-aansatid midda aad raadin lehed. waa aragtaan alaabahaas ayuu noo soo saaray. alaabta noocaan ah, alaabta magaceedu ku siinaa, wuxuu ku siinaa macnaha maxaa la dhihi jiray koodhkeedu ku siinaa oo aad Amazon ku isticmaali lahayd, qiimaheedu ku siinaa. marka aan fiirino hal alaab, aan dhahno alaabtan ayaan keeni rabaa, alaabtan ayaad macnaha fiirinaya. waxaa leedahay minimum product, alaabtan waxaa waaye maxaa la dhihi jiray premium medium camera coverage. waxaad qaadi kartaa lambarkan, copy gareyn kartaa. waxaa leedahay copy, Amazon ayaad aadi kartaa,
markaad Amazon aadid caadi halkan ayaad best aad ka dhigi kartaa marka, ama magac inaad inta badan waxaa beel ah in aad magac ku raadisid. magac wuxuu kuu soo saarayaa ayadoo laisku barbar dhigoy alaabo noocaas oo kaleed ah. aan kasii wareejiyo kii kale anoo isticmaaloy koodhka loo isticmaalay Amazon, magaciis ayaan soo qaadanaya alaabtan. Amazon halkan ma ahayd Amazon jangaskood qaybta marka waxaan soo qaadanaa halkan ay u fududeed magac fiican ay ku lahayd alaabta. okay. premium medium camera coverage from Indigo wow proof electronic equipment. okay, magaca marka waxaa waaye camera cover waa marka waxaad soo qaadan kartaa medium ata waa dhixi kartaa medium camera cover from Indigo. waa imaane Amazon ayaad ka raadinay camera cover from Indigo isla markaasaad u raadayso waxaa aada extensionka asaa wax kasta macluumaadka oo dhan kuusoo gabagabeynaya wuu raadinaya marka wixii dhan asaas ku keenaya marka haddii aad fiirisid alaabtan asi uu ku tilmaamayo wuu kuusoo gaabiyey pricekiisa oo aragta priceka brandiga halii maalintii la iibiyo reviewska isla markii meeshan waa ka go-aansan kartaa. alaabtan qaybta hore waa aragtaa zero waayo, nin iibiye maba lahanba qofkiis inuu ku guurayo filaa. kan waxaa la iibiyaa $9 la iibiyaa oo aragtaa shuruud ma buuxiyo maba iibsamo oo aragtaa maanta sales ever waayo, daily sales ever waayo, rankingkiisa wakaa 4.5 intaan kale shuruuda inta badan ma buuxiyo. marka isla markii waa ku go-aansan kartaa alaabta adigoo fiirinayso macluumaadkan ka bacdina aan fiirino alaabtan hadda waxaa lagu leeyahay HP Tango X whatever waxaa la iibiyaa 189 bishii waxaa iibsanta 190 16 xabo maalintii ayaa la iibsadaa bishiina macnaa intaasoo lacag soo geliyaa. alaabtan shuruudda aad ugu tegayso waxaa waaye midda kuwaad horta waxaa waaye qiimaheedaabo aad iyo aad u sareeya. maxaa qiimaha looga cararaa wax $35 ka badan? waxaad uga cararaysaa sababto ah waxaa waaye soo iibinteeda kugu adkaanaya. adi hadda wax inaad taagsatid aad raadinaysaa wax raqiisi oo adi $1 iyo wax ka yar aad kusoo iibisid adna lacag fiican $20 iyo $50 aad kasoo iibisid ama $30 $20 $40 meeshan 189 waaye soo iibsashadeeda kugu adkaanaya. waxaad u baahan tahay in company aad aatid ama iyo dad oo iskaashaday inay noqoto marka waa kugu adkaanaya. marka wixii aan idinku la talinayo inaad qiimaha aad u fiirisaan $17 ilaa iyo $30 waa sidaas marka sidaan ayuu kugu sahlayaa. alaabta markaad go-aansatid aad dhahdid ani waxaan keeni rabaa noocaas ka bacdi ayaad waxaad raadin doontaa supplierka. hadda kuma sii dheeraanayo marka intaanoo dhan waxaad u baahan tahay hal inaad usii fiirisid marka kii aad ku go-aansatid aad dhahdo macnaa ani swim dharkaan aan keenaa jewelry waxaa shuruudo oo adag ay leedahay marka lama geli karo, laakiin sidaan filayo kan hadda dhar caadi waaye. marka alaabta aad dooranayso waa ina ogaataa sidoo kale inay restricted product ay tahay ama unrestricted product inay tahay. mar haddii aad ogaatid ka bacdi alaabta inay restricted product ay tahay waa isaga gudbe. haddii oo unrestricted ay tahay kuwaasaa galaya marka. mar haddii aad ogaatid alaabta inaad keeni kartid ama alaab fiican ay tahay ama priceka shuruuda ay u buuxiyey adoo isticmaalay softwarekan
waxaad aadaysaa supplierka, qof alaabtaas kusoo sameeyo ayaad raadinaysaa marka taasna waxaan uga hadli doonaa videoga kale soo socdo. marka ilaa hadda waxaan filayaa inaad fahanteen nidaamka softwareka loogu raadiyo alaabta aad doonaysid, ayna kuu sahli karto in aad hal isla markaas u fiirsato. wuxuu ku siinayaa marka intaasoo alaab ayuu ku siinayaa. haddii aad fiirsid wuxuu ku siinaya qeybtan 269 bog markii aad doorato all, balse markii aad doorato hal category aad dhahdo ani baby product keliya u baahana inaan fiiriyo, ama health product keliya inaan fiiriyo, ama cloth inaan fiiriyo, haddii aad dhahdo isla markii wax yar uu ku siinaa, marka waqti badan kaama qaadanayso in alaabta aad filanqayso midna aad ku go-aansatid. waa fahantaan filaa. marka waa sidaa. marka insha allah sidaas ayaad ku raadin kartaa alaab ku iibsanto. marka waxaan idin tusinaa qeybtii kale oo xigto si aad alaabtaas meeshii aad kasoo iibsan lahayd, nidaamka aad ula hadli lahayd, iyo sida alaabta macnaa iyo aad dadka aad ugu soo iibsan lahayd, shippingkeeda aad alaabta u keeni lahayd. mar haddii aad keento haddana Amazon sida aad u gelin lahayd. marka stay to the end. channelku subscribe haddaadan subscribe gareynin si videoyada kale aad u heshid.